taliyaha ciidamada daraawiishta maamul goboleedka Puntland ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyay shaqo joojin ay maalmihii ugu dambeeyay sameeyeen ciidamada maamulkaasi kuwaas oo qabsaday qaybo ka mid ah magaalada Garowe gaar ahaan kontaroolka laga soo galo koonfurta magaaladaasi. wariyahana Maxamed Bootaan Yuusuf ayaa faahfaahinaya. gododkii dhawaan ay sameeyeen ciidamada daraawiishta ee Puntland arintaasi oo fasiraad kala duwan ay ku macneeyeen siyaasiyiinta iyo mas'uuliyiinta maamulka Puntland ayaa waxa ka hadlay oo shijiraad ku qabtay magaalada Garowe taliyaha ciidanka daraawiishta Colonel Jimcaale Jaamac wuxuuna ugu horeyn ka raaligeliyay shacabka mudooyinka xiriirada ay sareen ciidamada magaalada isla markaana xiriirahooda dib lagu celshay ciidamada. halka aan taaganahay waxa weeye waa barta kontaroolka koonfureed ee magaalada Garowe maalmaha kan xoogaa baa jiray ciidan gadooday ciidan kuma doos kamid ah baa gadootay dadku magac siyaabo badan bay u fasireen ma ahayn sida loo fasiray ciidankaasi waa ciidan gadood ah oo waxa weeye dadka carab iyo ilka isugu dhawaayo waa isqoomaan dawladooda wax yar ka tirsadeen waxa weeye ciidan kuma doos kama ahayn waa koox ciidan kuma doos kamid ay ahayd hawshaasna waa la xaliyay inta badnayd wixii kalena waa la xalinayaa ciidanka kumaandoosku. sidoo kale wuxuu ka jawaabay hadalkii madaxweynaha Puntland oo ahaa in saraakiisha ciidamada ay isku bedeleen siyaasiyiin wuxuuna sheegay in arrimo siyaasadeed aysan ku lahayn ciidamada. dad meelaha ka hadlay iyo dad magaranaysaa warxmato shiila iyo sharaftooda wax ma dhimi karaan qoloteen waa ka badan tahay waxay diyaar u yihiin mar walba habeen iyo maalin bay heegan u yihiin inay dalkooda difaacaan dawladoodana ka amar qaataan siyaasiyiin iyo dad mucaaradana iyo dad ku soo gaban karaan iyo dad wax u sheegi karaan ma anagu ciidan baan nahay siyaadna shaqo kuma lihin waa ka madax bannaanahay waxaan saacadan diyaar u nahay shaqo meel kasta oo dalkayaga wax ka soo kordhaan amniga macasbada difaaca dalka kulli xil baa naga saaran waa ka shaqeynaa sidaan rooga shaqeyn jireen waa shaqeynaa haddii waxa weeye ninkiis yiraahdo wax u dhin oo ciidan kumaandooska maanta dhaliil uga dhig waxa ma noqonayso ciidan kumaandoosku dadweynaha ummadda Puntland waa yaqaaneen waana jecel yihiin. muddo toddobaad ah ayaa ciidamada ay xireen magaalada Garowe iyadoo markii dambe lagu xaliyay qayb ka mid ah mushaarkooda inuu siiyo. waxaan halka ka sheegayaa laba kelmadood oo ah horta qalad madc lama oran karo qalad waa dhacay laakiin qalad ka dhacay wuxuu ahaa in xadaysan waxaan ka marxaanti ahay oo marka kacaya anoo ah taliye qayb nimankaasu kontaroolka iyo intii ay fadhiyeen wax ka baxsan oo magaaladaas oo ay dhibaato u geysteen iyo hal xab oo dhacday iyo nabadgelyo xumo iyo khashashaad magaalada lagu sameeyay ama foodo iyo nabadgelyo xumo ay sameeyeen inay jirin waxaan leenahay marka wixii dhacay waxay u taal waa wax dhacay weey dawladda iyo ummadda iyo dadweynaha iyo waxgaradka waxa la isla wada ogaa weey nimankaasu way gadoodeen waxayna sheeganayeen wax ka maqan inay ka maqan tahay inay ka maqnaan Allah subhanahu wa ta'ala ma sheegi karno laakiin waxaan maraka ahay inay nabadgelyo xumo ka baxsan inta ay sheeganayaan ayay u geysan dadka iyo deegaanka iyo magaalada midna intaas baan cadeynayaa anigu waana ka baxay salaamu calaykum waraxmatullaahi waa la gabagabeeyay waana la dhameeyay maanta oo taariikhdu tahay 12kii bishii 3aad 2017 anigoo ah duqa caasimadda Puntland Garowe waxaan cadeynayaa in meesha aan joognaan ay kasankii tahay ciidamadan xiriyahoodii ay ku noqdeen shaqadiina si caadi ah oo rasmi ah ay u socoto dawlad iyo shacab iyadoo la isku duuban yahay ayaa hawsha lagu guureystay waana caasimadda Puntland waa nabad horena nabad bay u ahayd haddana waa nabad dadka facebookyada iyo baraha bulshada wax ku qorayana waxaan leenahay waxba kama jiraan wax wanaagsan inaa qodaan baa idin fiican inta waxan qori lahaydeen wax qof walbana mas'uul wuxuu ka yahay wixii dadka Soomaaliyeed ay ku horumarayaan inuu qoro ama islaamnimadiisa ama Soomaalinimadiisa sidaas weeye waxa laga rabo ma aha wax dhibaato geysanaya ama war aan jirin inuu abuuro wax ka jira ma jiraan heer nugaaleedna waxa lagu yaqaan inay xaliyaan wax kasta oo soo mara sidaas loogu baxshay magaalada nabadda middan ciidankan ciidan Puntland weeye wax dhibaho ka dhacay hal qof erix laguma oran intii meesha joogeen tabashadiina waa la xaliyay dibna u soo noqonayso aad iyo aad baa mahadsantahay waxay tiraahdaa wax la qaba xiisan mar
warka badankiisii waa lay waxaa la isku raacay waa sidaad u jeedeen in kastamkii iyo kontaroolkii la wareejiyey wax dhibaataan aysan ka dhicin meel yar baan ku dardarayaa qalad yar baa dhacay wuxuuna ka dhacay koox ka mid a ciidanka kumaandooska hawshaasna waa la xaliyey taliya ciidan kumaandooska oo juhdi badan geliyena wuxuu ballan qaaday inaysan arrintaas mar dambe soo noqonayn waa lagu mahadceliyaa waxaana ka sugaynaa taliya markaasu inuu sidaa u sheegtay noqdo ciidanka kumaandooska 7 sano jiraaba umaleeyaa weligiis maanta ka hor kama dhicin waxaan rajaynayaa sidiisii si ka fiican inuu noqon doono waxaan rabaa inaan galo sidii hortiin arkaysay taliyihii saldhigga xabsigan waxaa ku xirnaa 87 maxbuus baa ku xirnaa dhammaan maxaabuustii waa laga wareejiyey oo gacantii dowladda baa lagu soo wareejiyey awalna ciidankeeduusan baxayey taasi waxay ku caddaynaysaa inaysan wax siistama aysan waxba u dhibin oo aysan waxoodu ahayn inay wax burburiyaan ay ku ekayd adeero hadalka ay ku ekayd runtabasho keliya maamulii kastamku wuxuu furay xafiiskiisii waa yaalaan cashuuraadka buugtii lagu qaadi jiray hortiinna wuxuu ka qiray inaan wax dukumiintigiisii la taaban taasuna waxay qiraysaa hadday lacag doonayeen dukumiintiya jabsan lahaayeen waxay ku goosan lahaayeen inaysan sistamka dawliga waxba u dhimayn bay qiraysaa oo ay yihiin waddaniyiin dhammaan agabkii kale oo saldhigyada yaallay waa sidoodii runtii waxa weeye waa wax qaladkii dhacay lagu sixi karo maxaa yeele qofka hadduu intuu wax ka dhacaan wixii meel au ku ekaysiiyo taasi intaa dhaafin waa guul weeye waxaana ku tustay haba qaldameena xilkasnimada ay leeyihiin taliyaha qaybtu wuxuu sheegay inaan wax fal amni darra ah aysan magaalada u geysan annaguna waxaan ognahay shacabkii weynihii meeshaa marayay inaysan wax dhibaataa u geysan ama waxay ka qaadeen ha noqoto ama wax dhibaataa ha noqotee soomaalidu hadda waxay tidhahdaa adduunka intay laha abuuray carab iyo ilkaa isku dhowiyana waa isqaniinaan ogaa yar bay ahayd xurguftaa waa la xalliyey intii marka nabcayd wanaagga intii nabcayd caasimadda horumarkeeda intii nabcayd midnimada puntland oo facebookyada ku qoraysay waa la billiqaystay waa la qabsaday dhibaataa ka taagan waa u jeedaan oo hadda heshiinaa macallin waxaa kama jiraan intii jeclaydna waxaan ugu bogaadinayaa inay waxay wadeen oo wanaagga ay hore u sii wadaan aad iyo aad baad u mahadsantihiin wasiirka caafimaadka labada gudoomiyaha degmada iyo gudoomiyaha gobolka iyo ku-xigeenadooda gudoomiyaha degmada agaasimaha guud ee arrimaha gudaha jananada ama janalka muxudiin oo maartay saraakiisha sare oo booliska odayaasha iyo waxgaradka ganacsatada siyaasiyiinta ka soo qayb gashay iyo ciidanka dowladda puntland oo kala gedisan ama haadeen ciidanka kumaandooska meesha tan markii hore ku gadooday ama haadeen ciidanka booliska iyo laamahooda kala gedisan waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu saxaafadda waa dib baa iyadana ka raacsiinaya aad iyo aad baa waxaan uga mahad celinayaa cid kastoo arrintan ka soo shaqaysa maantana arrintan waxay ku dhammaatay guul bay ku dhammaatay halkan hadda waxa taagan oo war saxaafadeeda dhinacyada ka taagan waa ciidankii booliska iyo ciidankii kumaandooska oo xilka la kala wareegaya iyo mas-uuliyiintii gobolka iyo degmada way waxaa ka hadda wada fadhiya arrintanna waxay ku dhammaatay sidii inta samaha jecelayd bay ku dhammaatay inta dhibaatada ka shaqaysa ama dhibaatada mumbuurisana waxaan leenahay war ummadda soomaaliyeed maanta dhibaato uma baahna waxay u baahan tahay maslaxa in laga shaqeeyo annaguna dadka maslaxadda ka shaqeynaya baan nahay markii lasoo puntland arrinteeda laga hadlo puntland wax waa ka dhacaan laakiin mar walba puntland arrinteeda waxay ku dhammaataa xal nabadeed bay ku dhammaataa sababta waa dad dhaqan iyo sharaf iyo aqoon leh sida dadka kale isu laayaan oo ama ay isugu laayaan kontaroolada
ama waarta waxyaalaha yaryar oo minorka ay isugu laayaan Puntland arrintaas kama dhacdo marka waxaan leeyahay inta maaragtay baraha wararka wanaaga ka sheegayso maslaxada lahayd ha laga gaarana waxay u noqonaysaa maaragtay arrin farxad leh u noqonaysaa inta waxa xun sheegaysana waxaan leenahay waxa xun masjid shaqeynaya waxa shaqeynaya wanaaga waxa shaqeynaya maslaxada waxa shaqeynaya midnimada waxa shaqeynaya aragtida suuban oo saliimka waxa shaqeynaysa sababta dadka waxa badan boqolkiiba 95 waa inta maslaxada ka shaqeysa shanta hadheena waa inta argagixisada iyo inta fawdada la shaqeysa marka inta fawdada la shaqeysa waxa ka badan inta maslaxada ka shaqeysa marka waxa weeye aad iyo aad baa waxaan ugu mahadcelinayaa saraakiisha halkan dheer soo gashay hadday wax tawdeen waa la tawdaa waxa la tawdaa Puntland dadka baasiti u leeyahay inay arintooda maslaxa ku xalistaan arinta maslaxa lagu xaliyay waayna dhamaatay dadkuna gacmo u haystaa Puntland waa in cid kasta meel kasta ay joogto waa inay amniga ka shaqeysiyo horumarka Puntland xilli abaaraad baan ku jirnaa umada abaaraha iyo dhibaatada ka jirta waa inaynu gacan siino wax kale oo xumaan ah inaan ka shaqeyno aad iyo aad baan u mahadsantihiin